ووطني وقلكادايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني وقبان كرايا xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn u qabtay 25 xubnood oo isugu jira siyaasiyiin aqoon-yahano iyo taageerayaashooda kana soo jeeda gobolada saaxil iyo maroodijeex munaasabadan oo ka dhacday hotel Maasoor ee magaalada Hargeysa waxa ka qayb galay musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ku-xigeenkiisa Dr. Maxamed Cali iyo hoggaanka sare ee xisbigaasi dhalinyaro iyo haween munaasabadaasi ugu horreyn waxa ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku biiray cuqaal iyo dhalinyaro kuwaas oo sheegay inay doonayaan in isbedel horumarineed uu dalka ka dhaco guul weyn u soo hooyatay xisbiga wadani maanta guul weyn baa u soo hooyatay guul ka maqnayd ayaa u soo hooyatay albaab ka xidhnaa ayaa u furmay waddankan Soomaaliland waxa laga xoreeyay berbera markii berbera xorowday ayaa inta kalena xorowday ninkii aan filaynowba haddii la isleeyay tirayar ama shakhsiyaad baa dadka haya oo dadku u dabran yihiin dadku waa xor dadku waxay leeyihiin caqli dadku waxay leeyihiin hal cad bay arkaan in dadka indhaha sidaa looga xulayo annagu cod baanu haynaa codka buura meeshaan wada baan soo bandhigayaa ballan waxay ku qaadeen wadani inay ku biiraan cabdi reegabo balalla maanta soo baxay kulmiye food buu nagu qiyaamay food baynu kaga qaadinaa waa nin xigay iyo nin sokow waddankeeni gurmad buu baahan yahay Soomaaliland waxaynu nahay dadka aan maalin qura reer Soomaaliland helin calan xora oo adduunyada laga aqoonsay anigu waxaan ahaa xogayihii xusbiga kulmiye ee gobolka saaxil ee ugu muddada dheeraa ee 7 sano joogay wax berberi waxay ahayd hal afar naas leh afartii naasba waa laga cunay afartaa naas haddii aan yara sharaxo afarteeda naas waxay ahaayeen dekada berbera eriboodhka berbera haamaha berbera iyo shamiitada berbera waddankani wuxuu u baahan yahay caqli in la isticmaalo la isku laayo oo maskaxda la tuujiyo oo wax laga bedelo musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Cali xogayaha maaliyadda xisbiga wadani Cabdirasaaq Khaliif iyo la taliyaha musharaxa wadani ee dhinaca dibadda Faadumo Siciid ayaa iyaguna siyaasiyiinta iyo taageerayaasha maanta ku soo biiray ee ka soo jeeda gobolada saaxil iyo maroodijeex waxay ku tilmaameen hil siyaasadeed oo xisbiga wadani u soo kordhay waxay farxad noo ah dhammaan xisbiga anigoo ku hadlaya afkiisa inaanu halkan ku soo dhaweyno oo xaflad ugu qabanno hal door ay hogaaminayaan madaxdii dhaqanka siyaasiyiin iyo aqoon-yahan waxaan isleeyahay waxay qayb ka noqonaysaa ama dhammaystir u noqonaysaa geedigii dheeraa ee xisbigu soo maray ee maalin boqolo ama ay kooxi ku soo biiraysay dadkii saxaafadda ka lahaa Faadumo dadkeedii meeday indhihiina ku arka waa kuwaase waxaanu idin leenahay maanta qof damiir leh qof naxaya qof in yar ay maskaxdiisu fayowdahay qof beerkiisa ka naxaya oo berbera arkay caynkay noqotay berbera arkay siday u dhimatay berbera arkay sida loo xaalufiyay berbera arkay sida loo dilay wala kulmiya kuma harayaan aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa idinka xafladda le maanta waxaanu idin leenahay guulaysta ugu dambeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani oo soo dhaweeyay siyaasiyiinta iyo taageerayaasha maanta ku soo biiray waxaan u mahadnaqayaa oo aan hambalyeynaya raggii halkan iyo beesha weyn ee halkan boorka inaga dambeeya waxa ku qoran geediga guusha waxaan qabaa ereygaasi inuu erey sax yahay ee gobolada saaxil iyo maroodijeex waxaan qabaa rag halkan laga sheegay taariikhdooda ee halkan ka soo qayb qaatay ee maantana diyaar u ah inay dalkooda xabad ku badbaadiyaan diyaar uma aha laakiin waxay diyaar u yihiin inay codkooda ku badbaadiyaan